بسم الله الرحمن الرحيم mahadsanid mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh warbaahinta ciidamada ammaanka iyo bahda saxaafadda waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta waa maalin weyn maalin shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed ku weyn maalin aan isleeyahay nasiibka iyo waqtigu uu inoo hiliyay inaynu goobjoog u ahaano 70 sano kadib inaynu arrimihii masiiriga ahaa aynu wax ka bedel ku sameeyno ama aynu ka doodno codka waa bahalka hadlaysan ma la maqlayaa ma waayo waxaan geli doonaa doodayda insha Allah soo koobaya haddii alla ilaa ugu horeyn gudoomiye arrinta waqtiga ayaan rabaa inaan ku yar noqdo arrinta waqtiga sida laga dhawaajiyay 10 minute sida xeeroosaadku qabo maanta oo keliyana 80 xildhibaan baa isqoray 80 xildhibaan haddaynu 10 ku dhufanno waxay ka dhigantahay 800 minute oo taqriiban 15 saacadood noqonaya 15 saacadood maanta diyaar ma u nahay xirfadii iyo xeeladii mudane gudoomiye aynu arrintaa ku maamuleen maanta waa la naga rabaa waana imtixaan inoo hor yaala qodobka koowaad cutubka koowaad qodobka koowaad wuxuu leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliya asalka dastuurka ku meel gaarka ah waa sida ku qoran soo jeedinta wax ka bedelkana waxa lagu qoray jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya asalka ayaa u baahan inaynu isweydiino sidii xildhibaankii markii dhaweyd halkan taagnaa xildhibaan xidig uu lahaa dastuurka la tixraacaya waa kii haddii kala tixraacaya uu yahay kan golaha shacabka yaala ee xildhibaanada loo qaybiyay ee 2012kii August kowdeedii la ansixiyay hadduu yahay waxa ku taala jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuma taala jamhuuriyadda Soomaaliya markaa waxaan rabnaa arrinta balin naloo cadeeyo dastuurka la tixraacayo laba qodobka sideedaad shacabka iyo jinsiyadda waxay ahayd kolka hore shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed laakiin waxa la yiri shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxaa Soomaalinimadii looga cararayo that's the question Soomaaliyeed bay ahayd in lagu qoraa iskama iman macno ballaaran oo falsafiya oo xambaarsan taariikh ummadeed jiritaan iyo gobonnimo ahayd maxay tahay baahida keentay in Soomaaliyeed laga cararo iyadoo inuu ognahay gobolka iyo dunida waxa ka socda geopoliticska iyadoo inuu ognahay Gabiley Garbahaarey iyo Boosaaso in la sheeganayo inaynu inagu hadda ka cararno Soomaaliyeed waxaan isleeyahay arrintaasi inagu meel ka dhac inaguma aha waa lumin dhaxalkii awood waxaan isleeyahay arrintaas laga waayo si gaar ah malaayiinta Soomaalida oo ay ka mid yihiin boqolaalka kun ee qofeen matalo waa dad reer guuraaya dadka reer guuraagana meel walba hoomo ah meel walba guri u ah jiilaalkii xaggay joogaan gugiina xaggan ay joogaan cidda oranaysa 6 bilood baad halkan joogtaa 6na halkaas aad joogtaa wax xaq uma lihid ciddaas la iska rabaa maxaynu inagu dadka u kala qaybinayna maxaynu qaybta inaynu kala qaybino u rabnaa anu waxaan isleeyahay arrintaasi arrin inagayna qabato maaha waa arrin ceeb ku ah inaan dastuurkeena sidaa ku qoranno si gaara dadkaynu leenahay Soomaalinimada aynu ka sheeganayno waxa ku jira qodobka 6aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka hadlaya astaanta iyo heesta calanka إلهينا حريستي جناها كورابية حسين أو فارح دبت يا عبد الله قرشي أيام مدنا سمي مدنا قاضي والصمدة أما هاي بساعة شريتان كينا تدكينو كسارين ما تصومالين ماذا تدكاسا كميدا وهل كنا دقناه أصلا يارين تاسا يارين قدف كواوي آدي أدوه ما سنتين ما تسن حلبان قبسن